gudida qaadaan ururinta wadada Gubaniya Xabiya sidoo kale mas'uuliyiinta cisbitaalka Maandeeye ee magaalada Burco ayaa deeq lacageed oo dhan $3,502 ka gudoomay ururka Caawiya ayaan oo ay ku midaysan yihiin hablo ka soo jeeda gobolada Togdheer iyo Sanaag. deeqdani lacagta ah ee ay soo direen ururka Caawiya ayaa wax weyn ka tari doona wadada Gubaniya Xab iyo sidoo kale cisbitaalka Maandeeye waxaana deeqdani ka wakiil ahaa Jamaal Maxamed Jamaal Xinwaal oo ka mid ah mas'uuliyiinta cisbitaalka Maandeeye ayaa waxa uu ka mahad celiyay hablaha ururka Caawiya ayaan ee soo diray deeqdani waxaana uu ku wareejiyay lacagtii loo soo wakiishay Hinda Jaamac oo ka mid ah madaxda wadada Gubaniya waa hablo reer Sanaag isugu jira lacagtan way soo ururiyeen way soo direen way soo habeeyeen way igu soo hagaajiyeen marka lacagtan waxa loo kala qaybinayaa oo kala leh wadada Gubaniya Xab iyo isbitaalka Maandeeye. Hinda Maxamed Jaamac oo ku hadlaysay afka gudida wadada Gubaniya Xab oo ka gudoontay lacagtaasi ayaa sheegtay in lacagtani wax badan ka tari doonto dhismaha wadadani waxaana sidoo kale ay ugu baaqday qurbo jooga kale iyo dadka muxsiniinta ah inay si weyn looga qayb qaato dhismaha wadadani Gubaniya Xab. ka wakiila gudida Gubaniya Xab ee kala jooga Hargeysa Burco iyo magaalada Berberaba waxaan ka qabanayaa $1,701 waxaan ka qabanayaa Jamaal aniga u gudoomiyay wadada accountka wadada aan gelinayna waxaan u mahadnaqaynaa mar labaad hablaha isxilqaamay ee Caawiya ayaan ee Imaaraadka jooga ee gobolka Sanaag iyo Togdheer ku magacaaban aad iyo aad u mahadsantihiin hawshan halka ka sii wada ilaahayna haydin la qabto lacagtina waata insha Allah maanta Khamiisa galabta baan ku ridi doonaa accountkii aad u mahadsantihiin waana idin sheegayna in lacagtaasina soo gaadhay. Maxamed Faarax bilo wararka shabakada caalamiga Ictiraaf News gudaha magaalada Burco.